meeshan aad kala soconaysaan rag war baa isku dara dumar sitaad wataynu nidhiye dal daara media group share iyo like-ta maxaan ku dhahdaay waxba nagala xishoonina warartaniyo sharmaarkay le waa iswaraysanayna dee rag war baa isku dara dumar sitaad baa Soomaalidu oran jirtay anigu horta luqad lagu warramo oo de horta sideedaba carab 5 daqiiqo laabana luqadda carabigaana warkeeda aad iyo aad u jecelahayo aan aad u qiimeeyo u xiiseeyaa waxaase igula yaab badnayd waa hore anoon aad nin yar u ah guriga Hargeysa jooga hadda dawladda siyaad barre hore garo dawladdeennii dhexe ayaa mid meelaha miyiga ka yimiyo wuxuu galgalay samaysto in dhacday waa iska raasamaale ninkuna carabiga ma yaqaan shoo laakiin waxaan isla ugu yaraan jin carabiga jecel baa ku jira warqad unba adigu loo qoray inuu carabi radio Hargeysa marka carabiga ka sii daayo carabigiibu marka wax carabi u eg laakiin aan shughul iyo shaqo toona ku lahayn uu soo ekisi ku soo yar shabahay waa gartay marka Allah uu naxariistay Maxamed Haashi Gaani oo gobolada waqooyi qaybta 26aad haystay ilaa dawladda military bay ahayd oo wafti ku aaday xagga iyo xiriirka qaxootiga Hargeysa u dhawaa oo hadhowna berbera iyo xagga aaday oo ay isheleen maxaan ku dhahday kooxo SNM mahbarkii burraba inuu carabiga ku soo qaato waa gartay dhagaha baaf laga dhigay dadkii la warkii muusiga soo galay huna Hargeysa من إذاعة جمهورية الديمقراطية الصومالية نبدأ ونقدم لنشرة الأخبار أيها المجتمع الكرام سيدي وساداتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخبار العالم حينما ذهب محمد حاشي قاني جيت ديبلي دبدي عداد وعودويني وبحندولة والصباعد والأسلور هو أكبر وصومرمرون في مدينة بربرة واستافه يركبون دقدقلي وأرمه 33 قريانا وبعدين وقع حرب صغير بين جيش SNM ودول الصومالية ويمسكون تكنيكين واحد باب والضيعان شاهد لك الله دكتور ريح Hargeysa ودد آدي ياضو قلبي وعن وحي لهذين يقول لك أنا بفصيحة ومحابة فصيحة وحلو كوهد لبوا في صوماليا وريح إلهي يغانوا إسلام نكي عرف كيديدين بقى waxaan ku laga bedeli maayo yiraahdaa ninkan aba fasaxa Soomaalida xalaashay sida dawladeeda u ogole bila qarandaarka ah wixii lagu warraba iska dhageystay ku kalsoone bay ahaan jireen